kulanti wanaagsan daawadayaasha qodobada xilligan ugu waaweyn waxaa qayb ka ah dalalka Carabeed oo loolan culus ugu jira Soomaaliya iyo shirqoolka Imaaraadka ee Soomaaliya oo si weyn looga hortagay hubkii ugu xoogganaa oo soo gaaray ee Soomaaliya iyo tilaabo military oo dalka uu qaadayo wararkii ugu dambeeyay qorshaha Sacuudiga iyo Imaaraadka oo banaanka yimid qodobada iyo kuwa kala goortan ay qayb ka yihiin warinta wararka loolanka dalalka Carabeed ee ugu jiraan xilligan Soomaaliya inay saameyn weyn gudaheeda ku yeeshaan ayaa aad u xoogaysata taas oo ilaa hadda ku dhexmaraya dalal badan Imaaraadka Qatar iyo Sacuudiga ayaa qayb ka ah sida dhinacyada adag ugu hardamayo doonaysana mid kasta inay aragtideeda si gaar ah kaga shaqeyso gudaha Soomaaliya marxaladahaas oo xilligan dalka uu doonayo inuu si adag kaga fiirsado dalalka qaybtood waxaa dul hoganaya shakiyo xoogan iyo dhagarro ay doonayaan in lagu weeqo awoodnimada Soomaaliya isla markaana ay gadaal ka reexayaan dhinacyada u xaqaltaagaya xilligan inay saldhigyo military iyo xeebo ay wadakada ay ku yeeshaan qaybo ka mid ah badda cas ee Soomaaliya sida ay faafisay wakaalada wararka ee AFP waxa isu sare u markala marayo loolanka u dhaxeeya boqortooyada Sacuudiga iyo Imaaraadka kaas oo ku saabsan sida ay saameyn ugu lahaayeen gudaha Soomaaliya iyadoo la tixgelinayo dad wargal ah ayaa la sheegay in Sacuudiga aad sare ugu qaaday heerka xiriirka Soomaaliya iyo deeqaha uu bixinayo si uu la mid ah dawladaha kala galaangal xoogan ugu yeeshay qadiyada badda cas oo sii murgaysa xaaladeeda Imaaraadka oo la sheegay inuu sii kordhinayo dhankiisa tuhanka laga qabay inuu hoosta ka riixayo dawladaha dariska oo ugu horeysay Itoobiya inay saldhigyo iyo dekada ku yeeshaan badda Soomaaliya ayaa xilligan dhankiisa loolan iyo markale wajahaya tilaabooyin hoos xiriirka Soomaaliya ugu dhigayso Sacuudiga isaga waxaa la sheegay inuu dawladda federaalka ee Soomaaliya kala hadlay sidoo uu garab kaga siin lahaa inay soo iibsato hubkii ugu horeeyay ee bisha December ee sanadkani tani ayaa u muujinaysa markale dawladda Sacuudiga inay qaadayso tilaabooyin ay doonayso inay booska kaga cariisato Imaaraadka oo saaxiibka koobaad waayihii dambe u ah Xasan Sheekh Maxamuud balse haatan kala shaki aad u xoogan uu soo wajahay tan iyo damaaciga Itoobiya markii uu xoogaysatay ficil muujinayo go'aanada Imaaraadka oo muuqana ay ku wajahday dhanka Abu Dhabi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar aan fogeyn Sacuudiga waxa uu magacaabay safiir nin gacantiisa midiga taas oo la sheegay inay ka turjumayso muhiimadda u yeelanayso xiriirka labada dal iyo inuu sare u kaco dawladaha Carabeed ayaa haatan waxa ku baraarugeen mudnaanta Soomaaliya ee dhanka badda cas haddana waxaa jira qalalaasihii ugu weynaa waxayna rabaan inay dhinac kasta ka fariistaan miiska looga hadlayo qadiyadan oo saameyn toos ah oo tuban ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo amnigooda tilaabooyinka xilligan ay isku majaxaabinayaan markale Imaaraadka Sacuudiga iyo Qatar ayaa aad u xoogaysatay amniga badda cas xilligan waxaa qalqal ku haya kooxaha Quutiyiinta ee dalka Yaban oo weerar ku beegsada qaar ka mid ah maraakiibta reer galbeedka oo halkaasi mara iyagoo sheegay inay ugu hiilinayaan kooxaha Xamaas ee dagaalka kula jira Israa'iil wadamada ugu badan ee maraakiibtooda ay bartilmaameedsadaan waa Mareykanka UK Israa'iilna hore ayay kaga qoysatay inay maraakiibteeda halkaasi maraan tani waxay Xuutiyiinta sheegeen dhanka dalka Yaman inaysan mari doonin isla markaana waxay ku goodiyeen haddii ay duqeynta Mareykanka iyo sidoo kale UK joogto noqoto inay jiri doonaan qadadka internetka ee bariga dhexe iyo Afrika iyo guudba caalamka isku xiro taas oo markale walaac laga muujinayo sababna u dhigaysa inaysan duqeymo xoogan la kulmi karin dhinacyadan oo xilligan garabyo waaweyn ka helaya Iran iyo dawlado kale oo si toos ah u maalgelinayo oo Ruushka uu qayb ka yahay sababna u tahay inay doonayaan inay aar u gudaan dadka reer Falastiin ee dhibaatada xoogan ay ku hayaan Yuhuudda mudooyinkii dambana dagaal aad u culus wajahayay qorshaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ee isku haynta Soomaaliya ayaa aad u korortay dawladana waxa la xaqiijiyay maalmihii la soo dhaafiyay bilooyinkii dambe in xiriirka dawladda Imaaraadka hoos u dhigtay boqortooyada Imaaraadka waxay marba marka ka dambeysay xoojinaysa inay door weyn ku yeelatay iyadoo wakiil dawladda reer galbeed u ah inay xilligan Itoobiya ay badda gaarto Soomaaliya dekada iyo saldhigga military dhaqaalahooda waxa la xaqiijiyay ama gacan ku hayntooda in Imaaraadka ay doonayso taas oo markale Soomaaliya shaki iyo walaac xoogan ku abuurtay loolankii awoodaha Soomaaliya kula heedna hoos loogu dhigay dhanka Qatar dhawaan waxaa tagay madaxweynaha Soomaaliya markalena taliyaha ciidanka iyo dib ugu noqday waxayna Soomaaliya la gashay iskaashi military oo dhinacyo badana tanina waxay dhabar jab weyn ku tahay Imaaraadka oo loolan culus dalkan kula jiro horseedna u noqotay in xiisadooda ay meesha ugu adkeed gaarto Imaaraadka Carabta waxay luminaysaa kalsoonidii ugu badneed ee Soomaaliya taasi oo meesha ka saari doonta Sacuudiga iyo sidoo kale Qatarna ay ku jiraan loolankii kama dambaysta ah oo ay doonayaan inay guud ahaan saaxadda Soomaaliya ay ka ciribtiraan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa la xaqiijiyay in la taliyaal badan oo Xasan Sheekh Maxamuud u soo jeediyaan inay si degdeg ah hoos loogu dhigo arrimaha gobolka iyo doorkii ay ku lahayd Imaaraadka xilligan
dowladdaas ayaa muujinaysa mid ka mid ah kalsooni xumadii ugu xooganeed iyo shaki doonayso inay Soomaaliya xilligan ku burburiso sharqool iyo dhagarro ay maleegaysa ayayna dowladda sheegtay maalmihii dambe in si weyn loo fashiliyay walow imaaraadku bixiyo dhaqaale iyo sidoo kale saldhigyo lool waa dhanka tababarada ciidamada iyo duqeymahaba waxaa la xaqiijiyay in dowladaha qaarkood u soo bandhigeen oo imaaraadka ay kala wareegaan booskaasi sida Sacuudiga iyo sidoo kale Qatar loolankooda xoogan ee diblomaasiyadeed ayaa isu soo taraya qorshahoodana waa inuu Xasan Sheekh Maxamuud mar kale hoos u dhigo xiriirka Dubai kala dhaxeeyo kadib shakiga iyo walaaca laga qabo inuu door weyn ku leedahay inay Itoobiya xilligan doonayso inay xeebaha Soomaaliya ay si toos ah ku tagaan waana dowladda kaliya ee xilligan qorshaheedu yahay inay muhiimad gaar ah u leedahay in Itoobiya halkaas ay gaarto tilaabooyinka saxiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaaday iyo xiriirka wadamada Carbeed ee la ballaariyay loolanka adag ee saddexdan dal u dhaxeeya ayaa horseed u noqday walaaca imaaraadka oo kordhay iyo qorshahoodii gobolka oo mar kale fashilmay Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigtay hubkii ugu xooganaa oo soo gaaray dalkeena taas oo sabab u tahay in xilligan looga gaashaato faragelinta gudaha iyo kuwa dibadda ay soo tarayay dowladihii ugu badnaa la xaqiijiyay hub iib iyo kuwa kale ee lagu taageerayo dalka oo mar kale cunaqabataynta hubka ee muddo saarneed laga qaaday inay soo gaareen kana degeen magaalada Muqdisho tani Soomaaliya waxay mar kale u diraysaa ay tahay fariin cadawgeeda ay kaga naxsanayso maadaama hore heshiisyo militari iyo awood dheeraad ay la gasho wadamo badan taas oo sare u qaadaysa kacdoonkii kacdoonadii jiray mar kalena albaabada ka soo xiraysa isku dayo ka soo xabashida iyo dhinacyada ku garabka ay doonayeen in awoodaha Soomaaliya hoos lagu dhigo sanadan hubeedu isugu jira qalabka diyaaradaha taangiyaasha iyo gawaarida kale ee culus ayaa la xaqiijinay Soomaaliya ka hesha dowladda ay qayb ka tahay wadamada Carbeed kuwa bariga dhexe iyo dalalka Yurub qaybtood tani waa tilaabo mar kale doonaysa inay wadamada ay qayb ka tahay xilligan dhinacyada dowladtuska doonaya inay awood ku qabsadaan xeebaha Soomaaliya inay fariin adag u dirayso Soomaalida isla markaana sheegay inay difaac iyo awood ay ku maamuli doonaan goob kasta oo badda riyada Itoobiya ay saroobi doonin dowladda Soomaaliya waxay qaaday tilaabooyin diblomaasiyadeed oo mar kale horseed u noqday niyad jab iyo walaac culus oo la kulmay Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya wali waxa uu ku calaacalayay inuu kulan la qaatay Xasan Sheekh Maxamuud oo iska dheereeyay inuusan xilligan diyaar u ahayn wax wada fadhiyo Itoobiya la yeelanayo tan iyo intay ka noqonayso heshiis beeneedka Addis Ababa ka dhacay bishii la soo dhaafay kowdeedii xogtii ugu dambeysay guud ahaan xilligan naga soo gaaraysa ayaa tilmaamaysa in xiisadda ay meesha ugu adkeyd gaartay horseedna u noqon kartay saysiga dhinacyadan oo sii kororto tilaabooyinka degdega ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee qaaday loolanka dalalka Carbeed ku dhaxmarayo iyo saanada hubeed ee dheeraadka Soomaaliya soo gaartay ayaa daadijinaysa mar kale in wadamada qaarkood kalsoonida iyo xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya hoos loo dhigo kuwa cusubna ay ku soo biiraan taas oo saaxadda ka saaraysa aragtiyada Itoobiyaanka oo qaybtooda ay mas'uul kaga ahayd imaaraadka